laakiin waxaan rabaa mudane gudoomiye guddiga riboorkiisu aad iyo aad u sareeyay laakiin wuxuu ahaa fawaylu lil musalliina halkaasay uga tageen guddiga riboorkiisa wuxuu sheegay inay sharci darro ahayd in qalbi dhagax la dhiibo recommendationkiisina wuxuu ku daray shahal cab Soomaaliya ha fiicnaato Soomaaliya ha kala leexato Soomaaliya haddaan qofna mas'uuliyadda qaadaynin say u kala leexanaysaa gudoomiye fawaylu lil musalliina alladina hum an salatihim sahuna ubahad hadii kala wax dukana la arki maayo hadda maanta marka riboorka aan dhageysanay ee ahayd in qalbi dhagax uu sharci darro lagu dhiibay haddaan lagu darin ugu yaraan adaful iimaan recommendationka war qalbi dhagax la soo celiyo ko war ONLF argixisay ma ahayn argixisay ma ahan hal lagu qoro recommendationka dawladdu iyo golaha wasiiraduna ka laabtaan labo iyo wax la mid ah haddaan lagu darin mudane gudoomiye ayadaas waa jaban tahay fawaylu lil musalliina ku simantahay aniga ra'yigayga dadka qabata baan riboorku inuu fiican yahay laakiin hal la saxo ko labo gudoomiye iyo xildhibaanada sharafta leh warbixinta saan ku dhageysanay xaalka saan ula soconay qalbi dhagax waa la afduubay xeer maxkamadeed ama warqad maxkamadeed lagu ma soo qaban falbadiyeedna faraa kula ma jirin markii dawladda la ogaaday oo dawladda laga hadlana waxay yiraahdeen asagan ka soo badbaadinay koox xarab inay afduubaan markii la yiri ninka ha dhiibinina waxay yiraahdeen maya ma dhiibayno ee asaga dalbaday inuu Itoobiya la hadlo markii Itoobiya ay soo hadashay tirinin argixisada weyna la soo dhiibay waraaqda dawladda waa isku dhaxyaacday golaha wasiirada waxa la fariisiyay 10 bari kadib waxa la yiri ninkii dambiilow ahaaye urur argixisada ka tirsanaaye hadda aan dhahno waana 10 bari nin sii maqan gudoomiye mudanayaal xildhibaanada sharafta leh waxaan rabaa dhiibista qalbi dhagax waxay la mid tahay dhiibista qof walba Soomaaliyeed oo man qatala nafsan fakaanama qatala naasa jamiican ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا دلك الصومالي حكاكم ما دلك دتك علنك يسيادة دلك تلابا إلا جت تنازل الله موقلا دتك نقف إلا جت تنازل الله موقلا بحين قلب الدجح وحيقول لك أنت دلك يا دتك أيدو إلا جت تنازل وسيادة يدول لماذا إلا جت تنازل وحربا ريبورك وحقوق الرأي أو صاحبة أي شيء in hay'adda nabad sugidda ay ka mas'uul tahay dhiibista qalbi dhagax ma arbada waxay tiraa waxay raaliga hada ayada ma arbada waxay tiraa ida kunta tadri fatilka musibatun wa ida kunta la tadri fal musibatu a'dab madaxda sare ee dalka arinta dhiibista qalbi dhagax haday wax ka ogaayeen waa musiibo hadaysan wax ka ogeyn waa ka xun tahay mas'uuliyadna lagu aamini karo labada xaaladoodba midna uma fiicna gudoomiye cali xoosh hadaa tiri madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu ma ogeyn kaliya nabad sugidda dhoofiyay hadaa tiri fatilka musibatun nama xukumi karaan ma saxna ma inay dalka xukumaan haday ogaayeen waa ka falxunta wadana gudoomiye sida ku cad warbixinta guddiga arinta qalbi dhagax lifaaqida sida ku cad wasaaradda amnigu ma ogeyn wasiirka cadaaladdu waa ka diiday immigration-ku ma ogeyn hay'adda diyaaraduhu ma ogeyn cid loo ogeed madaxda sare ma jirin marka waxaan rabaa in aan mas'uuliyadda laga gambanin waxaan rabaa halkan inaan marka ka soo jeediyo ugu yaraan adaful iimaan inay dhiibista qalbi dhagax ahayd khiyaamo weyn oo khalada in la saxana loo baahan yahay kow labo oo aan rafadana wax u tari karin inay naga nabad gasho ayada Itoobiya hadaan heshiisiin karno waa shaqo weyn oo la qabto saddex waxaan rabaa gudoomiye inaan xasuusiyo baarlamaanka sharafta leh waxa jira nin Sacuudiyaan oo mucaarad al-Mas'ari la yiraahdo oo London ku nool oo dawladda Sacuudiga muddo dheer mucaarad ku ahaa dawladda Sacuudiga lacag 22 bilyan oo dollar safqad la yaqaan oo safqada al-Yamama la yiraahdo waxay la gashay dawladda Ingiriiska waqtigaas ee John Major laakiin waxa lagu xiray in al-Mas'ari ay soo dhiibaan John Major waa ogolaaday iyo xukuumaddiisii iyo nabad sugiddiisii intii sida hadda anaga noo gasho kale qaadi Ingiriis ah joojiyo diiday qaadiga la wareystay markaas uu yiri maanta hadaan al-Mas'ari dulmi ku dhiibo bari ilmahayga aniga in dulmiga nagu soo laabto kama wax shaki iga ma jiraan
waxaan aad iyo aad ula yaabana qof walba oo baarlamaanka fadhiya ama shacabka Soomaaliyeed meesha uu rabaa joogo ee madaxda ku difaaca maanta dhiibista qalbi dhagax ninkii walaalka loo xiro bari soo qoyso waaye waxa adiga bari ku difaaci doona su'aasheeda aad iyo aad muhiim ah waxaan rabaa gudoomiye baarlamaanada sharafta leh ina ilaahay hortiisa ku marqaati furo adinkoo fadhiya inaan raalli ka ahayn dhiibista qalbi dhagax oo golayn dambi ay tahay ayna tahay cidi geysatay la ciqaab ma aaminsan inay hadda nabad sugidda tahay ma aaminsan madaxdu inaysan ogeyn haddaysan ogeyn waa musiibo hadday ogaayeen waa musiibo ka weyn waxaan rabaa inaan halkan ku sheego qalbi dhagax waxa ugu yar oo u tari kara waxay tahay qoyskiisa bil gurnadeeda kamid ah